bulshaweynta Soomaalida qaybaheeda kala duwan waxa ay isweydiinayaan xaaladaha kala duwan ee ka soo kordhay Somaliland iyo hadal haynta maalinta 13 November oo ay ka harsan tahay muddo ka yar 3 maalin 13 November iyo xaaladaha kala duwan ee Somaliland ku soo kordhay oo qayb ka tahay hadallada kulul ee xanafta leh ee hawada sumarinayaan madaxda asxaabta mucaaradka iyo madaxweynaha waqti xaadirkan Muuse Biixi Cabdi tan iyo 1991 gobolada waqooyi ama Somaliland waxay ku noolaayeen calan ay aasaasen sanadkaasi oo lagu unkumay magaala madaxda labaad ee Somaliland waa Burce iyadoo lagu heshiiyay in lagu shaqeeyo dastuurka ku meel gaadhka waqtigaasi oo madaxweyne loo doortay Cabdiraxmaan Tuur oo hogaaminayay jabhadii dhaqdhaqaaqa ee Sanam ee dagaalka adag la gashay dawladii waqtigaasi uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre xukuumada kala duwan oo ay kala hogaaminayeen madaxweynayaasha Cabdiraxmaan Tuur Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Daahir Riyaale Kaahin iyo Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo sidoo kale Muuse Biixi Cabdi waqti xaadirkan jooga ayaa soo kala hogaamiyay Somaliland waxaana mid walba lagu xasuustaa waxqabadyo kala duwan sida doorashooyinka in la sameeyo Somaliland lacag u gaar ah waxbarasho iyo manhaj u gaar ah ciidan isugu jira military iyo police oo ka kala howlgala guud ahaan Somaliland iyadoo ay xusid mudan tahay in dhanka amniga ay ku talaabsadeen guul weyn iyadoo ayna saameyn ku yeelanin marka laga yimaado dagaaladii sukeeye ee sanadkii 1994 ka dhacay Somaliland iyadoo ay xusid mudan tahay in madaxdaasi ay qabteen baahiyaadka asaasiga sida jidadka dugsiyada isbitaalada jaamacadaha dekada Berbera oo ah dekadaha ugu casirsan Geeska Afrika dhismaha wasaaradaha xarumaha maamulada gobolada garoomada kubadda dhismayaasha suuqyo waaweyn haddaba haddaynu dul istaagno nuxurka dhanka doorashooyinka Somaliland waxa lagu amaanaa dimuqraadiyad iyadoo ay badiba madaxdaasi ay ku yimaadeen cod shacabna ay ku tageen sidoo kale waxa la qabtay muddadaasi 33 sano ah ku dhawaad 10 doorasho oo si xor iyo xalaal ah una kala duwaneyd sida golayaasha deegaanka golayaasha wakiilada iyo tan madaxweynaha 13 November bulsho badan oo Soomaaliyeed way isweydiinaysaa maxaa dhacaya Somaliland waa maalin ku aastaysan inay ku eegtahay muddo xileedkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo talada Somaliland iyo dastuurku siinayo inuu xaq u leeyahay inuu madaxweyne ka ahaado 5 sano haddaba waxaa 5 sano laga joogaa maalintii la dhaariyay mudane Muuse Biixi Cabdi dalkana uu kula wareegay cod dhan 51% codadkii la dhiibtay su'aalaha kale ee Soomaalidu isweydiinayso ayaa haddii madaxweynaha waqtigiisu idlaaday maxaa labada xisbi mucaarad iyo madaxweynuhu u tartami waayeen isagoo matalaya xisbi muxaafidka kulmiye taas bedelkeeda 14 urur xagay ka socdaan waa su'aal ay isweydiinayaan bulsho badan oo Soomaaliyeed jawaabteeduna waxa ay tahay jawaabteedu oo ah in dastuurka Somaliland uu qorayo in 10 sano mar ay ka soo wareegto la faro ururo badan kadib ay ka soo baxaan 3 xisbi qaran iyadoo October soo dhaaftay ee ku eekay 10 sano ee ay siyaasadda ay soo hagayeen xisbiyada u cid wadan iyo kulmiye oo sanadii 2012 ku soo baxay doorashadii ururada badan iyadoo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku andacoonayo in ilaa iyo 3 xisbi ay soo tartamaan oo ay ka soo gudbaan doorashada ururada inaanay doorashada madaxweynaha galaynin isagoo carabka ku dhuftay in xisbigiisu diyaar u yahay doorashadaasi dhanka kale xisbiyada mucaaradka ayaa iska diiday go'aankaasi uu madaxweynuhu sheegay in dastuurka uu cuskanayo iyagoo isku raacay labada xisbi mucaarad ee ay kala hogaamiyaan Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciro inay ka soo horjeedaan doorashada madaxweynaha iyagoo sheegay inay ka soo horjeedaan doorashada ururada badan iyagoo sheegay inay diyaar u yihiin doorashada madaxweynaha ayna galayaan kadib markaasi doorashada ururada iyadoo xisbiga ugu weyn Somaliland ee mucaaradka ee waa wadaniye uu safar ku gaala bixinayo dhammaan gobolada Somaliland isagoo sheegay inuu talada uu ka soo ururinayo taageerayaashiisa maantana uu ku eegyahay ku soo laabtay caasimadda Somaliland ee Hargeysa talada uu ka soo qaato dhammaan goboladana uu ku go'aan gaadhayo 13 November golaha guurtida ama golaha odayaasha oo ahaa xalka kaliya ee Somaliland ay ku soo caanamaashay ayaa iyagu xaalka dab ku sii shiday kadib markii ay mudane Muuse Biixi Cabdi ugu dareen muddo 2 sano ah balse ay mucaaradku ku gacan saydeen isla markaana waxa ay galeen fasax 2 bil ah waa golaha guurtida
isku soo wada duubo 13 November waa maalin ay kaga eeg tahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi muddo xileedkiisa iyo isagoo cadaadis badan kala kulmaya xisbiyada mucaaradka waa u cidiyo wadaniye sidoo kale beesha caalamka oo soo wakiilatay ku dhawaad 13 safiir oo qaabka maqal iyo muuqaalka oo maalintii la soo dhaafay ee Talaadada kula hadlay mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu baaqay inuu dhowro hanaanka dimuqraadiyadda oo hore ugu soo caanamashay Somaliland. Waa Ibrahim Suleymaan Hanuuniye, M24 TV, magaalada Muqdisho.